xaaskiisa ayuu ka cararay kadib markii ay u dhashay 10 mataana ah magaalada Kampala ee wadanka Uganda. Waxaa ka dhacday arrin yaab iyo makaag leh oo qaybo badan oo kamid ah warbaahinta caalamka ay qoraysay, sidoo kalena warbaahinta Uganda ay aad u qoraysay. haweeneydan ay u jeedaan sawirkeeda iyo caruurteeda ayaa ninkeeda waxay u dhashay 5 da oo min 2 mataana ah, yacni waxay u dhashay 10 caruura. deedna intii ay horay mataana u dhalisay ayaa ninkeedu horay wuxuu dhowr jeer u sheegay in ay ka dayso mataanaha badan. wuxuu ku yiri walaalay mataanaha badan waa igu fara badan yihiin, ma korin karo, fadlan iga daa mar dambe mataano ha igu dhalin. sidoo kale ninkan ayaa wuxuu sameyn jiray mar walba ay mataano dhasho guriga hooyadeed ayuu isaga diri jiray isagoo isleh bal mataanaha ay dhalaso ha ka joojiso. ugu dambeyn haweeneydan ayaa maalin dhaweeta dhashay da'deedii 5aad oo 2 mataana ah, taasoo ah in ay 10 caruur dhashay oo min 2 mataana ah. deedna ninkii ayaa hal mar isaga baxsaday gurigii oo haweeneydii iyo caruurtii ay mataana ahayd ee 10 ka ahaaba ka cararay. arrintaas waxaa sii dheer arrin kale oo murugo leh. haweeneydan waxa u yimid ninkii ay ka deganayeen guriga kiradaha. ninkii ayaa wuxuu ku yiri gurigeyga iga guur adiga iyo rakaabkaagaba. ereygaas ayuu adeegsaday isagoo ula jeeda caruurtan faraha badan ee mataanaha. wuxuu ku yiri gurigeyga waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badan uga baxdaan adiga iyo rakaabkaagaba. gabadhan sheekadeeda ayaa waxa qorayay qaybo badan oo kamid ah warbaahinta Uganda, iyo sidoo kale markii dambe waxay u soo shaabaxday in ay warbaahinta caalamku ay qorto. dabcan sida aan la soconno Ilaahay ayaa bixiyay caruurta ama mataana ha ahaadaan ama hal ha ahaadaan, laakiin adigu sidee ayaa u aragtaa tallaabada ninkan qaaday ee xaaskiisii uga cararay? aragtidaada qaybta faallada nagula wadaag, muuqaalkan asxaabtaada la sii wadaag. waa maasantihiin guuleysta.